يوسف oo joogta Danishka waxaan weydiin lahaa sheekha aniga oo sooman bil Ramadaan waxa ii timid ama ii soo martida naag gaal ah wixii guriga ii yaalay wax ma ka siin karaa oo cuno bisil ah aniguna aan soomanahay soonkaas aan soomanahay maxay u dhimaysaa alxamdulillah mas'aladan horta mas'ala iska khilaafiya fuqahadeenu soonka waajibitaankiisa markay ka hadlayaan shuruudda waxay ku daraan qofku inuu muslim yahay taasoo macnaheedu ay tahay qof aan muslim ahayn soon kuma waajibo soonna lama dhaho hadhowna hadduu islaamana soo qado ee lama yidhaahdo waxaa kaloo ay culimmadu kaga hadlaan masale la yidhaahda gaaladu shariicada axkaamteeda waajibaadkeedu ma ku waajibba muxaramaadkeedana ma ka xaaraanba towxiidka marka laga soo tago qaarna culimmadu ay leeyihiin maya qaarna haa kuwa haana waxay isku hayaan khilaafkani thamara iyo masaa'il ka ratibmaya oo ka dhalanayo adduunka ama jiraan bise aakhare ciqaabteedoo maa salakakum fii saqara oo kaleetun wey khilaafkaasay culimmadu ku qaybsan yihiin baa qofba aragtidu ka qabo kaga jawaabaa aniga waxaa raajixila ah inaan gaalka soon lagu lahayn furuucda camaliga ee fiqiga iyo masaa'ilka axkaamtaana uusan isagu si toosa mukhaatab ugu ahayn laakiin maadaama towxiidkii uu la iman waayey wixii towxiidka uu keeni lahaa markuu la yimaado waajibka uu dayacay wixii ka dhashay cuquub ahaan aakhara loogu qabsanayo marad hadday saa darteed gaalku ama ha kuu shaqeeyo ama marti ha kuu soo maro cuntona waa la siin karaa waana la marti gelin karaa maadaama aan idhi anugu xaraajixila ah inayna takaaliiftan sharciga waajibaan u saarayn fuqahadeennina inta aan garanayo shuruudda soonka ku waajibay islaamnimadii ay ku dareen wabillahi towfiiq waa tahay daawadayaal wali waxaynu bartan kaga jirnaa barnaamijkeena kulanka shibli oo aad inooga barateen toddobaad walba haadaha iyo kale daawadayaal haddii aad gadaal kaga soo biirteen barnaamijku aad doonaysaan inaad su'aalo kusoo weydiisaan sheekha waxaad nagala soo xiriiri kartaan ciwaanka shaashada idinkaga muuqda ee kulanka shibli @somali channel.tv ama barta inuu Facebook ku leenahay kulanka shibli ee Somali Channel